dalalka ugu dhaqaalaha sarreeya dunida, waana waddan xornimadiisa qaadatay 2 maalmood kadib markii laga soo noqday dagaalkii labaad ee adduunka. Waa waddan ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan dunida. Haddaba muuqaalkan daawadayaal waxaynu ka eegi doonaa macluumaad badan iyo xaqiiqooyin ku saabsan dalka Indonesia. Balse inta aynaan daawan muuqaalka, haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, hana hilmaamin inaad furato gambaleelka. Mahadsanid. Jamhuuriyadda Indonesia waa waddan dhaca koonfur bari qaaradda Aasiya, waxa uuna u dhexeeya Badweynta Hindiya iyo Badweynta Pacific. Waxa uu xuduudda dhanka dhulka ah la leeyahay Malaysia, Papua New Guinea iyo East Timor. Sidoo kale waxa uu deris leeyahay Australia iyo Philippines. Waxa uuna kaalinta 15aad ku jira dalalka ugu ballaaran dunida. Masaaxada dhulkiisuna waxay gaadhaysaa 1,904,569 kiiloomitir laba jibaaran. Waa waddanka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Aasiya. Sidoo kale waa waddanka afraad ee ugu dadka badan caalamka, waxayna dadkiisu gaadhayaan in ka badan 273 milyan. Waa waddan juqraafi ahaan la yaab leh, waxa uuna ka mid yahay waddamada uu maro dhulbadhuhu. Waddankan ayaa ah waddanka ugu jasiiradaha badan dunida, waxayna jasiiradaha dalkani gaadhayaan in ka badan 17,500 oo jasiiradood. Jasiiradaha ugu caansan waxaa ka mid ah Jasiiradda Java, Sumatra iyo Bali. Java waa jasiirad ay ku nool yihiin 140 milyan oo qof, taasoo ka dhigan 60% dadka waddanka. Sidoo kale Jasiiradda Bali waa goob ku caan ah dalxiiska, waxaana sanad kasta dalxiis u taga malaayiin qof, kuwaasi oo ka kala yimaada daafaha dunida. Bali ayaa ah jasiiradda ugu quruxda badan dalka Indonesia, waxayna xukuumaddu u aastaysay goob lagu dalxiiso, waxayna leedahay qurux dabiici iyo muuqaalo indhaha u roon. Jasiiraddan ayaa leh garoon diyaaradeed, waxaana si taraabeil u isticmaala dalxiisayaasha. Dadka ugu badan ee u dalxiisa jasiiradda waa dadka u dhashay dalkaasi, waxayna ku qaadataa in ay u dalxiisaan muddo 3 saacadood. Sidoo kale waxay leedahay hoteelo qurux badan, kuwaasi oo ku yaala hareeraha xeebta. Indonesia ayaa ah waddanka ugu Muslimiinta badan dunida, 7% waa Muslimiin. Dalka Indonesia waxa uu xornimada ka qaatay dalka Holland 17 August 1945, waxaana soo maray madaxweyneyaal dhowr ah, kuwaasoo gaadhay 7 madaxweyne. Madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Indonesia xornimada kadib waxa uu ahaa Sukarno, waxa uuna dalkaasi xukumayay 1945 ilaa 1967. Sidoo kale madaxweynihii labaad waxa uu ahaa Suharto, waxa uuna haystay 1967 ilaa 1998. Madaxweynihii saddexaadna waxa uu ahaa Bahruddin Yusuf Habibie, waxa uuna madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay 1998 ilaa 1999. Madaxweynaha afraad Abdurrahmaan Waxiid, waxa uuna ka talinayay 1999 ilaa 2001. Madaxweynihii shanaad ee dalkaasi waxa uu ahaa Megawati Sukarno Putri, waxayna ahayd gabadhii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqotay Indonesia, waxaana dhalay madaxweynihii ugu horreeyay, waxayna xilka haysay 2001 ilaa 2004. Susilo Bambang Yudhoyono waa madaxweynihii lixaad ee dalka Indonesia, waxa uuna xilka hayay intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2014. Madaxweynihii toddobaad ee dalka Indonesia, Joko Widodo, waxa uu qabsaday 2014 ilaa iyo haatan. Dhaqaale ahaan, dalka Indonesia waxa uu ka mid yahay waddamada ugu dhaqaalaha horeeya dunida, waxa uuna ku jiraa waddamada loo yaqaano G20. Waddankan ayaa waxa uu ka mid ahaa waddamada ugu dhaqaalaha liita dunida, balse wixii ka dambeeyay 1997 wuxuu sameeyay koboc dhaqaale oo aad u sarreeya, waxa uuna ka mid noqday waddamada ugu dhaqaalaha sarreeya dunida. Dalkani waxa uu inta badan ku tiirsan yahay beeraha, qiyaastii 90% dadka ku nool Indonesia waa beeraley. Jakarta waa caasimadda dalka Indonesia, waana magaalada ugu weyn dalkaasi, waxayna ku taallaa xeebta waqooyi galbeed ee jasiiradda ugu dadka badan dunida ee Java. Waa xarunta dhaqaalaha, dhaqanka iyo siyaasadda ee dalka Indonesia. Waa magaalo xeebeed qurux badan, waxayna noqotay magaalada 10aad ee ugu weyn dunida, waxaana ku nool dad gaadhaya 10 milyan oo qof. Ma ogtahay daawade in dalka Indonesia iyo dalka Monaco ay isku caan yihiin, keliyana ay ku kala duwan yihiin sayska ama cabbirka, oo waxaana yara dheer calanka Indonesia. Ma ogtahay in dadka ku nool dalka Indonesia ay yihiin dadka ugu yaryar dunida? 5 milyan oo ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 30 sano, halka 8% ay da'doodu ka weyn tahay 60 jir.
Ma ogtahay in dalka Indonesia laga hadlo luqado gaadhay 700 oo luqadood? Luqadda rasmiga ah ee dalka waa Indonesian Bahasa, waana luqadda loogu isticmaalka badan yahay dalkaasi. Luqadda labaad ee ugu caansan waa luqadda Javanese-ka, waxaana ku hadla dad gaadhaya 84 milyan oo qof. Ma ogtahay daawada in harada Toba ay tahay harada ugu weyn dunida ee ka samaysantay qarax volcano? Waana haro aad u qurux badan isla markaasina leh biyo aad u diiran, waxayna ku taalaa waqooyiga jasiiradda Sumatra. Dalka Indonesia ayaa ka mid ah dalalka ugu dhulgariiraya fulkaanada badan dunida. Mase ogtahay daawada in waddanka Indonesia uu yahay dalka labaad ee ugu xeebta dheer dunida? Haddaba xeebta Indonesia ayaa ah 54,716 kiiloomitir. Kaalinta koowaadna waxaa ku jira dalka Canada oo ay xeebtiisu gaadho 202,080 kiiloomitir. Rafflesia arnoldii waa ubaxa ugu weyn dunida, waxa uuna ka baxaa jasiiradda Sumatra ee Indonesia, culeyskiisuna waa 7 kiilogaraam. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka yahay.